Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kusoo dhawow channelka Waxgarad. Fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe dheh. Maskii hadiyada siyaasadda loo bixiyay. Noocyada hadiyadaha madaxda isku gudbiso ayaa qaarkood yaab leeyihiin. Hadiyadu waxay wadataa farxad, laakiinse haddii lagu soo hordhigo xayawaan nool oo aanad hore u arag, waxaa kugu dhacaya naxdin bilowga hore, inkastoo ay xiiso leedahay. Sanadkii 1986, madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan ayaa booqasho ku tagay dalka Indonesia, gaar ahaan jasiiradda Bali, halkaasi oo uu waqtigaasi deganaa madaxweynihii dalkaasi Suharto. Waxaana uu halkaasi ku guddoonsiiyay hadiyad ahayd xayawaanka ay u yaqaaneen kodomo, oo ah mascagaley ama abeeso-lugaley, oo aan Mareykanka laga helin. Waa xayawaan sida mascagaleyda noocyadeeda ka mid ah, inkastoo muuqaalkoodu isu wada dhow yihiin. Waxaana xayawaankaasi lagu meeleeyay beerta qaranka ee ku taal Washington DC ee dalka Mareykanka. Dowladda Indonesia ayaa haddana mar kale sanadkii 1990 hadiyad taasi la mid ah u dirtay madaxweynihii xilligaasi George Bush. Sababta ayaa ahayd in xayawaankan si weyn looga tixgeliyo dalka Indonesia oo uu ka mid yahay hadiyadaha ugu qaalisan ee qiimaha leh, lana siiyo qofka loo hayo tixgelin iyo sharaf gaar ah. Intaas ayaa maanta idin soo bandhigay. Fadlan igu caawi waxaad awooddo, aan kugu caawiyo waxaan awoodo. Waad awoodaa inaad channelka subscribe dhahdo. Haddaad ka heshay videogan aad like saarto, anna waan kugu caawin doonaa Instagram-kayga insha Allah. Aad iyo aad u mahadsantihiin.